لكن أودك هذا الجيل ما مد أنت هلاك الدكتور عبد الرحمن خورشيد waxay ka shaqaynaysaa muddo sanado badan ah gudaha markaska Boqor Fahad ee baaritaanada caafimaad gudaha magaalada Jidda si loo ogaado xaqiiqada. إنه شيء لا يصدق. وأرين أنا لرميسان كرين ربتي. نصح الرسول. waxa uu ku taliyay rasuulkeena naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee inay dadku cabi karaan kaadida geela. Very strange. لقد درسنا waxa aan darisnay waxyaabaha ay ka kooban tahay kaadida geela waxaana ka helnay inay ka kooban tahay qaybo yar yar oo kamid ah قائلة من الفضة والذهب والبلاتينيوم kulligoodna waa kuwa saameynaya bini'aadamka laakiin waxyaabahaas yar yar ay ka kooban tahay kaliya waxa ay raacsan yihiin خلايا السرطانية فقط waxa ayna burburinayaan والخلايا السرطانية دون تأثير iyadoo aanan saameynaynin unugyada kale ee agtooda ahaaday without affecting the normal tissues around these cells. waqtiga casriga ah في العصر ma jirto cid aqbalaysa cabidda kaadida geela oo caadi ah sidaas darteed waxaan qalajinaa kaadida geela waxaan ku cabiraynaa oo aan ka dhigaynaa kaniini oo kale dhabti waa shay cajiib ah حقا Form. waxa aan rajaynayaa in geelu mustaqbalka dhow ka badbaadin doono dadka cudurrada ay ka mid yihiin في المستقبل القريب HIV/AIDS-ka أمراض kansarka iyo xanuunada kale ee ku dhaca beerka أمراض iyo cudurrada kale ee khatarta ah ee ka jira caalamka waa xayawaano cajiib ah waana wax ilaahayna siiyay baaritaanku kama suulin inuu yahay weli mid bilow ah waxaana halka ahaaday baahiyo loo qabo in la siyaadiyo baaritaanadan caafimaad iyo daawooyinkan intaan la shaacinin